Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay asxaabta meel walba aad joogtaan. Maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa su'aal ka timid mid ka mid ah asxaabta ku xiran channelkeena Zimikis Perfect. Su'aashiisana waxay tahay sida tan: saaxiib Khaali, waxaad noo soo diyaarisaa sida loo qurxiyo sawirada wejigana loo caddeeyo. Run ahaantii wuxuu doonayaa sida tan. Marka hore sawirkan wuxuu ahay sida tan, kadibna waxaan ka dhignay markaan aan balance iyo wejigaba aan caddaynay sida tan ayuu noqday. Markaan ku tusiyo sida loo sameeyo waana hab fudud, marka daawasho wanaagsan. sidaad u jeedo sawirkan waxaa lagu sawiray meel daag ayaa lagu sawiray. Marka waxaan rabnaa in sawirkan wejiga iyo jirka inta kale inaan qurxino ayaa rabnaa, oo macnaha aan bright aan ku furno. Marka ugu horeyso waxaan sameynaynaa dhanka layerska ayaan tagaynaa. Markaan dhanka layerska aan tagno, sawirkan ayaan copy ka qaadanaynaa. Si fudud waxaan leenahay Ctrl J, copy, sidaas ayaan ugu qaadanay. Kadib waxaan sameynaynaa new layer ayaan sameysanaynaa. Markaan new layer aan sameysano, kadibna brush toolka ayaan dooranaynaa. Markaan brush toolka aan doorano, marka ugu horeyso iska fiiri foregroundiga waa inuu kusoo horeeya white colorka inuu kusoo horeeyo waaye. Marinaysaa adigoo brush toolka wejiga iyo gacmaha ayaad marinaysaa colorka. Kadib si tartiib ah ayaad u marinaysaa. kadib markaan intaan sameyno sidaad u jeedo sawirka white kaliya ayaan ka rabnay. Marka wejiga gabi ahaantiisa ayaa white wada naqday, wejiga oo dhan waa la wada akhriyay. Marka waxaan kusoo muujin karnaa sawirkan layerska ayaan tagaynaa, kadibna blend mode-ka ayaan furaynaa. Markaan furno kadib waxaan leenahay soft light ayaan leenahay. Markaan soft light aan dhahno, sidaad u jeedo meelahan waxaa ku jiro kalarka cadaanka ayaa ku jiro. Marka kalarka cadaanka meelahan yar yar oo dhanka labiska waan ka remove gareynaa. Si aan ugu remove gareynana, marka hore waxaad tagaysaa erase tool ayaad tagaysaa. Marka erase tool aad tagto, marka ugu horeyso si tartiib ah ayaad ugu tirtiraysaa. Si tartiib ah ayaad ugu tirtiraysaa. macnaha bright-ka oo geesahan ayaa la diidan yahay, marka xoogaa si tartiib ayaan ugu tirtiraynaa. macnaha kalarka white-ka ayaad geesahan oo dhan ayaad ka bixinaysaa. sababtoo tahay kaliya waxaan rabnaa in jirka kaliya inuu saameeyo ayaan rabnaa, ma rabno labiska inuu naga saameeyo. kadib sidaad u jeedo sawirkan inta aan bright aan ku furin, aan iftiin aan ku furin, markiis hore wuxuu ahay sida tan, kadibna waxaan ka dhignay sida tan. hadda marka waxaan sameynaynaa sawirkan in aan kalarkiisa aan saxno ayaan isku dayaynaa. marka hore waxaad tagaysaa dhanka layerska. markaad tagto iska fiiri inuu kuu dooran yahay layerkii aad copy garaysay. kadib waxaad sameynaysaa labadan layerkan oo white-ka ah iyo layerkan kale ayaad isku xiraysaa. adigoo controlka haya ayaa midka kalena click ayaad ku siinaysa. kadib right click ayaad leedahay, kadib waxaad leedahay merge layers ayaad leedahay. labada layer sidaas ayaa laisku kaa xiray. kadib waxaan tagaynaa dhanka filter ayaan tagaynaa. markaan tagno kadib waxaan kasii xulanaynaa camera raw filter ayaan ka xulanaynaa. meeshaan marka waxay kuu saacidaysaa in sawirkaaga kalar badan aad ku darsato. marka sidaad u jeedo sawirkan waxaan rabnaa kalarkan oo yellowga ah xoogaa yar inaan ku yara darno, magentaha xoogaa asagana kusoo yara dar. background hadduu yahay bright badan hadduu ku furan yahay, kaliya dhankan shadowga ayaad ka yareynaysaa. sawirka kaama saameynayo, kaliya wuxuu saameynayaa shadowgan, backgroundka ayuu saameynayaa. shadowga xoogaa yar contrastiga ku dar. kadib waxaan leenahay adiga color iska balance uu meesha sawirkan uu kusoo baxay oo kaliya ayaad sameynaysaa. kadib waxaan leenahay okay. sidaad u jeedo hadda sawirkan waxaa inoogala daray color balance ayaa inoogala daray. markiis hore wuxuu ahay sawirkan, markaan dhanka layerska aan tagno, markiis hore wuxuu ahay sida tan, kadibna waxaan ka dhignay sida tan. haddii uu labiska uu wato, hadduu kalarkan hadda aad ku darto hadduu kaa saameeyo, waxaad kaliya aad sameyn kartaa marka hore inaad sameysato new layer inaad sameysato. kadibna kalarka oo labiska meesha kaga nuuraya inaad doorato. brush toolka ayaad tagaysaa, kadibna altiga adigoo haya ayaa labiska meesha kaga nuuraya oo midabkiisa ah ayaad click ku siinaysaa. markaad click aad ku siiso waad soo yar marinaysaa isagana. tan waxay kaa saacidaysaa markii aad rabto in kalarka labiska xoogaa yar aad soo yar celiso, waayo haddii aad kalar aad ku darto wuxuu saameynayaa gabi ahaan ayuu saameynayaa. marka sidaan camal markaad u sameyso layerkan uu ku dooran yahay, waxaad furaysaa blend mode ayaad furaysaa. kadib waxaad ka xulanaysaa color ayaad ka xulanaysaa. sidaad u jeedo kalarkan aad iyo aad ay usoo jiitay. kalarkan sidaad u jeedo kalarkan waa mid nadiif ah, labiskana u shabaha.
waayo kalarka dhinacan kale markaad fiiriso waxa ku jiro redka hadda aan kusoo dirnay iyo yellowga hadda aan kusoo darnay marka sidan sahlan ayaad u samayn kartaa marka waa intaas fadlan hadda kaaga jawaabo su'aashan videogan la garee lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan insha Allah inta badan su'aalaha aad iga soo weydiisaan dhanka commentiga waxaan isku dayi doonaa muuqaalada soo socda inaan idinkaaga jawaabo marka waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh